kulankan oo ay ka soo qayb galeen golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya saraakiisha ciidamada militariga booliiska nabad sugidda iyo mas'uuliyiinta gobolka Baay kan degmada Baydhabo kulankan oo uu shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha Maxamed Xasan Fiqi ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka gaar ahaan ammaanka magaalada Baydhabo oo habeenkii xalay ahaa lagu dilay wadaad caan ka ahaa goboladan kulankan markii uu soo gabagaboobay ayaa waxa TV uga warbixiyay wasiirka arrimaha gudaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Master Abdiraxmaan maanta ay taariikhda tahay 3 bisha 2015 waxaa shir degdeg ah oo aan caadi ahayn isugu yimid golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya taliyaasha ciidamada booliiska militariga iyo nabad sugidda intaba shirkaasi waxaa shir gudoominayay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane shirkaasi waxaa looga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan nabadgelyada iyo horumarka bulshada degmada Baydhabo khaasatan waxyaabaha la isla soo qaaday waxa ugu badnaa sidii magaalada amnigeeda loo sugi lahaa oo maaragtay maamulka wasiirada iyo ciidamada si wada jir wada shaqeyn lahaayeen sidoo kale waxa laga hadlay hagaajinta nadaafadda magaalada Baydhabo iyo horumarinta arrimaha bulshada intaba sidaas daraadeed shirka wuxuu ku soo gabagaboobay si guul leh waxaana laga soo saaray qodobo muhiim ah oo ku saabsan xagga amniga iyo wada shaqeynta bulshada maamulka iyo golaha wasiirada kulankan looga hadlayay ammaanka magaalada Baydhabo ayaa imaanaya xilli habeenkii xalay ahaa magaalada Baydhabo lagu dilay wadaad caan ka ahaa gobolada koonfur galbeed Soomaaliya ayadoo kulankan ay yeesheen golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya iyo saraakiisha ammaanka uu ku soo gabagaboobay jawigii loogu talagalay Abshir Maxamed Nuur Mandela Royal TV Baydhabo